waxaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ergooyin ka kala socda Jubbooyinka, Gedo, Shabeellada Hoose iyo Banaadir ee raba inay ka qayb qaataan dhisidda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ergooyinka maanta soo gaaray Shaati Gaduud Airport ayaa si diiran waxaa halkaasi ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo kan degmada, odayaasha dhaqanka, culmaawadiinka, baada isboortiga iyo waliba ururada haweenka. soo dhaweyn kadib ayaa goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah wafdiga soo gaaray Baydhabo. Suldaanka Cawaale, Suldaan Cali Xasan Kuulo, howlihii aan u nimid waa noo dhiman yihiin, ka hadli mayno maanta insha Allah. waqtigeedu waa noo bilaaban doonaa. maanta waxaa weeye oo kaliya ah xafladani waa furitaankii shirka iyo martidu aan ayaa nagu soo dhaweysay sida sharaf leh nagu soo dhaweyseen. intaas oo kaliya aan waqtiga ku soo koobaya ujeedadeennina waa noo dhiman tahay. Suldaan Xaaji Xuseen Maxamed Macalin, suldaanka beesha intiraanahay dhageysan intaas ka badan ayaa naga galin hayna waan ujeedadu jeer way ka muuqataa. waxaan ilaahay ka rajaynaa waxaan meesha u imaanay anakan waa ognahay, ilaahay waa ogyahay inuu khayrkiis ilaahay waafajiyo oo si san inaan ku dhamaysano ayaan ilaahay aan ka rajaynaa. Assalaamu calaykum. وأيام محمد الشيخ ومساعد وكرر وكونفور كلبه يدي أنا كمان سنانو بدوجي كروجا مربنا يقدم بيتي اللي يبيعوا أنا كوينة يدي أنا السلام عليكم. waxaan matalayaa meesha reer Faqmad oo gobolka Gedo degto deegaankeedu uu yahay Jubbada Hoose, waxaana intaas oo dhanba ka sii weyn Soomaalida halkan maanta joogto walaalaha oo wax badan la kala celcelinayo la kala qoqodayay ayaa waxaan u sheegaynaa inaad maanta midoodaan oo midnimadiina wax ku qabsataan. xildhibaan baa yiri iyo wasiir baa yiri adinka ka weyn anagoo ah salaadiinta iyo malaaqyada digil iyo mirifle, gaar ahaan anigoo ah Suldaan Xeedar, Suldaan Suufi, Suldaan Munye, suldaanka beesha Tunni ahna suldaanka guud ee digil iyo mirifle aan hogaaminayo wafdiga salaadiinta maanta ka soo baxay xamar oo saacadan hadda ka soo dageen garoonka Baydhabo ayna u socdeen dawlad goboleedka 6 gobol ee mar dhow lagu dhisaayo degmada Baydhabo. wafdiga markuu ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Shaati Gaduud Airport ayaa loo dhaadhiciyay xarunta weyn ee shirarka ADC Baydhabo, waxaana halkaasi sidoo kale ka hadlay maamulka gobolka iyo malaaqyada digil iyo mirifle. may basiilaa madlamaati marsadad eedeeda ma asantina dhawaada walaanyagii ha ka dhawaada qalbo furma ka dhawaada dad maktubaran diyaarada saarnaayay khudbooyin dheeranay baahnayna fadhiya oo hiraabadkiisii aan qahay walwalbana baahan. runtii geekole waa wafdigii hore dhacay iyo kooy wafda kuntamay deeraw oo odayaal dhaqameedka iyo walgorodsho iyo mahaytiis siyaasiyiintiyo marna dadka oo Koonfur Galbeed degaw ya wada kooyan beelo kooyanna beelo wali waxa oo la eraw beel fulaan la eraw ma beelo Koonfur Galbeed hore dhacay kooy runtii wali waa geeka ididiilo badan iyo farxad badan ku muuqata. gobolka Galbeed gobolka Galbeed runtii Soomaaliya dhawaada مربنا ونسي مربنا ونسوبي ذكرت برضوي وواهنا اللي وعدا يا سيدي ونسوبي كيف تقدروا السعودية وكذا وين جاي وعكالته مغيب اللي تعبانه بلايين كرجال ركوم تقدر كعكالة تجيب ما يوم قبل الدين تسقط علينا جاي إن شاء الله. wafdigani maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa qayb ka ah wafdiyadii dhawaan la sugayay in ay soo gaaraan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay. Cabduqaadir Xasan TV-ga caalamiga Samsat Baydhabo Janaaye.